waxaa sharaf inoo ah marka in maanta markii ugu horeysay muddo dhowr sano ah aan leenahay waxaan halkan ku qabanay anagoo wada jir ah dhalinyarada aragtida dhalinyarada Soomaaliyeed oo kulligeen aan ku wada mideysannahay shir looga hadlayo hal abuurka aan ku sheegi doono dadkii hal abuuryo badan sameeyay oo ku guuleystay hal abuurkoodana ganacsiyo yar bilaabay ku soo noolaaday heerka gaaray ayaa halkan jooga sidoo kalena waxaan daneynaynaa inta tirada badan ee magaalada Muqdisho ku nool guud ahaan Soomaaliya inay sheekooyinkaas wax ka dhaxlaan ay dhageystaan akhristaan waxyaabaha halkan ka soo bixi doonaan ay ku dhaqmaan si iyaguna ay u helaan hal abuuro yar fikrooyin yar iyo waxyaabo ay bilaabaan farxadii waxay noo tahay qiimeyn aad u weyn waqtigan inay ku soo hagaagtay waqti intay dhalinyaradu isxilqaamaan shirar noocan ay qabtaan iyagoo aan la kaashanin cid kaleeto iyagoo aan isku mashquulinin yaa budgetka iyo miisaaniyadda iyo qorsheynta qayb ka noqon doona waxaad ogtihiin waxa ugu wanaagsan qof bini'aadanihi sameeyo inay tahay qofku inuu niyadiisa geliyo inuu hal abuurkiisa ka midho dhalin karo taasna waxaa daliil u ah shirkan aynu maanta joogno dadkii soo abaabulay iyo dadka gacanta ka geystayba waa dadaan dad kale ku xisaabtamin. First is that we really should look into the legal frameworks. We need to find ways to optimize the regulatory environment. And by that I mean we need to look into what are the registration costs. How complex is the process of a young person establishing its own business? How can we improve the trust in the system? How can we make sure that young people know the process and have access to the whole paperwork and all the bureaucracy to get their businesses registered? We also need to enhance entrepreneurship education and skill development. And by this, I talk about the fact that nowadays in our school systems, and this is not only in Somalia, in Brazil where I come from as well, and in many parts of the world, entrepreneurship is just not there. In the school systems, people are not being taught to be entrepreneurs, to take risks, to start their own ideas, and that has to change. waxa kaliya oo aan rabo in aan aad uga adkeeyo waxa waaye Soomaalida ganacsi marka la yiraahdo riskiya ku jiro Soomaalida waxa waaye iska daa xoolahooda nafteeda ay haligaan soo risk takers oo dhigooda ganacsi ku shaqeeya Soomaalida macnaha in uu maalkiisa uu khatar galiyo ninka Soomaaliga waa aad ay ugu fududahay sababtoo ah mararka qaarkiis naftooda ay hal soo dhinaca ganacsiga marka la fiiriyo adduunka oo dhan meel alla meeshay tagaan Washington Soomaalida South Africa waxyaabaha aad ka aragteen iyo Europe oo dhan iyo adduunka meeshay tagaan Mareykanka waxay ugu tageen dad caajis ah meelaha ay tageen runtii waa dad oo laga yaabo dadkii meesha u dhashay oo Red Indianska la dhahay ama Spanishka ay Soomaalida u shaqeeyaan laakiin waxaan leeyahay aniga naftirkeyga ma aaminsanayn ilaa heerkan inay dhalinyarada Soomaalida inta wax abaabulaan ay gaarsiin karaan ayaga oo aan cidna ku caawin hoos ahaan waxaan ka warqabaa inay dadaalayaan ayna rabaan dad caawiyo inay helaan laakiin uma suuro gasho sadarteed waxaan leeyahay hambaliyo ibn aadmigu wuxuu u baahan yahay wuxuu aaminsan yahay oo uusan ka harin inuu daba socdo marka kadib dadka wad ka duwanaan waxna waad soo saaraysaa aad iyo aad u mahadsantihiin dhamaan mas'uuliyiinta kala duwan halkan joogtaan waxaan leeyahay haddaad Soomaaliyadan ahayn ku soo dhawo wadankan hadda madaxdeena aad tahay sida ii karo kalena ilaahay maaragtay idin fududeeyo mas'uuliyadda haysiin mahadsantii. So according to the World Bank, we are having 60% of the population of Africa, which is composed of youth, unemployed. And we are having more than 10 millions and 12 millions of young people getting into the job market each and every year. And what we are saying is that these young people do not get jobs, even though they get into the job market. And that's where entrepreneurship becomes very important.
runtii rajadii igu jirta markaas waxay ahayd mar haddii awood u lahayd inaa keligaa jaamacad tagtay laga yaabo hooyo inay hal mar ku geysay kaasoo qortay kadibna ay kaasoo tagtay isla markaasna awood u lahayd inaa keligaa assignment diyaarinaysa awooddaa u lahayd inaa habeenkii keligaa dhafrayay haddaa adiga ahayd qofka keligaa habeenkii maxaa la dhahayaa soo jeedo imtixaanka diyaarinayay isla qofkaas saas u rafaaday maalintuu qalanjibiyo meeshuu madaxa kor u qaadi lahaa hadday noqoto inuu dhaho aaway oday dhaqameedkii qabiilkeena aaway xildhibaankii noogu jira dowladda aaway wasiirkeena xilligii la rabay inay ayaga dhahaan bal ninaa noo soo baxay kaaliya inaa adiga ayaga damaca kaa gala inay shaqo ku helaan runtii waxay la noqotay mentality aan sax ahayn la fiicnayna daas waxaan go'aansaday CV-gayga inaanan ku darin absolutely maxaa la dhahayaa qof reference aan dhahayo qofkaas ayaga wakiila Soomaaliya dhibaatooyinka ka jira waxaa ka mid ah qofka inuusan xirfad lahayn waxaa arkaysaa qof kasta wuxuu haystaa certificate-kiis wax kale ma theory waa inuu wax qoro rabaa oo xafiis fadhiisto cameraman lama hayo editor lama hayo screen player lama hayo lighting lama hayo waxyaabo bulshada u baahan tahay waxyaabaha u baahan in laga hadlo waxaa ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ma dhiirigeliyaan farsamada gacanta qofka inuu xirfad la noqdo oo gacantiisa wax ku sameeyo oo wax soo saaro oo wax qabto aad iyo aad ay ugu adag tahay in Soomaalida ay dhiirigeliso suuqa bakaaraha markaan tagnay surveyor sameynay su'aalaan weydiinay waxa inoo soo baxday marka oo dadka suuqa bakaaraha ka ganacsado gaar ahaan dadka muuska ka ganacsada inaysan faa'iido badan ka helin haddana su'aal kale ay sii weydiinay marka waxay islaan sababta ay uga faa'iidi la yihiin maxay tahay sababta ay dadkan muuska ka ganacsado ay faa'iido badan uga heli laayeen maxay tahay waxaa noo soo baxday laba shay labada shay aan analyze gareynay booskan ma buuxin karnaa isweydiinay jawaabtu waxay noqotay ha sidaas horta ayaa company-gan ku asaasay waxaan isku dayay inaan dib u laba kacleeyo oo ganacsigii dib aan u bilaabo 4 sano gudahooda waxaa ka soo wareegatay muddo 3 sano ah iyo halfkeeda at least 7 semesters ka soo wareegatay haatan jaamacaddii waxaa ka dhiman hal semester ka dhiman semester 7 ayaan ah 1 semester ay dhiman shirkadana waa Sumad Sign waxay samaysaa daabacaadaha guud laga soo bilaabo boorarka ilaa iyo buugaagta dabcan eventigaana wax allaale wixii daabacad ku baxay oo gacmo ku haysiin hadii buugaag ahaan lahayd hadii boorar ahaan lahayd hadii banners ahaan lahayd iyo hadii badge ahaan lahaydba yani waa Sumad Sign ayaa samaysay badanaa during the event waxaan maqlayay caqabado badanaa jiro youth entrepreneurs ka caqabado badanaa haysto laakiin aniga waxaan rabaa inaan horta inaan nii sheego yes caqabado way jiraan waddankan laakiin 100% waxaa ka badan fursadaha jira waddankan fursado badan ayaa la waddankan taasna waa inaan ka faa'iideysanaa sida loogu faa'iideysan karo waxa waaye waa forumyaashan iyo conferenceyaashan oo in platform la siiyo entrepreneuryada iyo dhalinyarada oo hal abuurka keenay iyo business ka bilowday tanna waa in la badiyaa saan bes inay ka kaatamaan oo looga hadlayo fikrado la isku kala weydaarsanayo arrimaha hal abuurka iyo fursadsiinta iyo shaqo abuurka dhalinyarada in la badiyo la laabo ayay ku taliyeen kooxaha qaar shirka sidoo kale waxaa lagu taliyay in la xoojiyo lana buuxiyo waxa u dhaxeeya da'yarta doonaysa inay hal abuur keensato loo maalgeliyo iyo dadka mar hore galay suuqa hal abuuro sameeyeen maanta millionaires ah lacaga sameeyeen inay dib u soo jaleecaan da'da yarna ay ayaguna markooda ay jaanisyo siiyaan sidoo kale waxaa lagu celceliyay shirka intii uu socday dadkuna ay sheegeen in fursadaha waddankan yaalo ay mar walba ka badan yihiin caqabadaha jira mar walbana ay badan tahay sida looga faa'iideysan karo maadaama la yahay dad wax bartay maadaama la yahay dad tiro badan ay u aadaan iskoolaad tiro badanna ay waxbarasho ku mashquulsan yihiin sidaas darteed shirka waxaa kaloo xoog lagu saaray in hal abuurka iyo sida looga faa'iideysan karo fikradaha yaryar iyo sida wax loo bilowdo lagula taliyo jaamacadaha iyo meelaha waxbarasho in dhalinyarada lagu tababaro xilliga ay waxbarashadu ku jiraan tusaale case study jiray in qofka haddii aan lagala hadlin dugsiga hoose dhexe sare iyo heer jaamacadeed haddaan looga hadlin sida wax loo soo saaro markuu soo baxo laguma qancin karo inuu wax soo saaran karo waxaa lagu qancin karaa inuu tahriibo waxaa lagu qancin karaa inuu iska baxo waxaa lagu qancin karaa inuu si kale wax u sameeyo waxaa lagu qancin karaa inuu wax dhaco wax hado marka sidaas darteed iskoolaadka hoose in laga sameeyo olole looga hadlayo hal abuurka iyo sida $200 $100 $500 dadku ay uga sameeyaan ganacsi case study-yaasna lala wadaago bal lagu daro waxyaabaha loo yaqaan manhajka lagu daro heerkiisa sareeya
shirkan aragtida hal abuurka ganacsatada Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah waxa way muhiimada u leeyahay inay isku wareystaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee keena fikradaha hal abuurka leh oo taabagalka wadanka ka hirgalay waa shay muhiim ah oo loo baahan yahay in markasta dhalinyarada loo qabto si isku dhaafsadaan aragtiyo kala bedelan kala la kala qaato qof kasta fikirka ku duugan iyo aqliga iyo wanaagga qofka kale isla jecel yahay oo isla sheeraan marka muhiimad khaas oo anaka noolahay hadii aan bahar regaalo waxaan ku baranay dad cusub waxaan ku yeelanay asxaab cusub customer cusub waan ku yeelanay waxaa mahad gaar ah u soo jeedinaynaa qabanqaabayaasha SYV wanaaggan iyo shirkan heerkan la eegay noo qabteen waa masantii dhalinyarada kale ee inta badan waxa lagu sheegaa inay dhanka negative-ka ama dhanka qaldan oo kale ama dagaalada ama inay wax isku lug leeyihiin inta badan u badan tahay laakiin hadda oo kale tan waxay ayadana jawaab u tahay ama fursad kale u tahay anoo kale hadda sana wadan ku noolaa wax dhib ah oo wadanka dhib ku ah ama dad dhib ku ahna ma ka qaadan runtii aragtidaasna way bedelaysaa leena waxay u bedelaysaa markii la arko kale in dad dhalinyaro inta isku imaadaan oo kale waxay ka hadlayaan oo business yahay qaarkood la garanaya addresskooda iyo meesha wax ku leeyihiin waxaasna way saxmaysaa shirkan faa'iido la saaru sheegay way ka mid tahay in image ama muuqaal la gudbiyo ku saabsan dhalinyarada inay saneen kaliya ku lug leh waxyaalahan magaalada ama wadanka qasayo kale laakiin ay tahay dhinaca ganacsiga inay ku leeyihiin waan aaminsanahay dhalinyarada ganacsi ku lug leh way jiraan waa arkay waa la kulmaa laakiin ma jiraan fursad lagu soo bandhigo inta badan media wax iska qaataan dhanka qaldan oo warka gadma laakiin inta badan hadii la raadiyo fursadahan oo kale la abuuro wala yaabi doonaan dad badan oo wax qayb qaadanaya jiraan dhalinyarada